5 sano ka bacdi maxaa ka dhacay Turkiga afgembigii dhicisoobay ka bacdi tan iyo inta ay Jamhuuriyadda Turkiga jirto waxaa ka dhacay waddanka Turkiga 4 afgembis oo ay ciidamada geysteen waddankaasi. Hase yeeshee 2 ka mid ah waxay ahaayeen faa'iido halka ay 2 ka midna ahaayeen khasaaro. 4taas afgembi 2 ka mid ah waxa ay horseedeen horumar iyo isbeddelo waaweyn ayagoon weliba la wareegin waddanka taladiisa. Bishii Luulyo 15keedii 2016 waxaa Turkiga ka dhacay afgembi dhicisoobay, waxaana ku xigay isbeddelo badan oo ka dhacay waddanka Turkiga. Maxaa dhacay 5tii sano ee la soo dhaafay? Siduuse u dhacay afgembigii dhicisoobay? Taageerayaasha Erdogan oo ka careysan afgembigaas dhacay ee lagu doonayay in xukunka looga tuuro madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. Ciidamada ayaa la wareegay xarumihii warbaahinta qaranka ee dalka Turkiga ee TRT. Dadkii hogaaminayay afgembigana way sii wadeen ayagoo dadka fariimihii u qaybinayo, dadkuna ay fariimahooda baahinayaan. Waxayna sheegeen in guddiga ammaanka uu la wareegay taladii waddanka. Warbaahinta CNN-ka ayaa la damiyay kadib markii ay ciidamada gudaha u galeen. Baraha bulshada ayaana la hakiyay. Laakiin arrintan la wareegidda CNN-ka ma aysan sii waarin kadib markii madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan xataa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan asiga oonan gaarin garoonka eelaboorka ee Ataturk waxa uu dadka kala hadlay warbaahinta CNN asigoona muuqaal ahaan kula wadaagay in ay dadka iskugu soo baxaan wadooyinka waaweyn oo ay xiraan wadooyinka waaweyn. Hase yeeshee madaxweynaha ayaa nasiib lahaa kadib markii bam lala dhacay hoteelkii uu deganaa, lana qabsaday hoteelkii ayadoo lagu qabtay weliba xoogayihii waqtigaas madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. Saacado kadib ma aysan caddayn meesha uu ku sugan yahay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. Wararka qaar ayaa sheegayay in uu fasax ku maqan yahay madaxweynaha, nasashana uu u tagay Marmaris oo ah meel lagu tamasleeyo ama loo dalxiiso oo ku taalo bartamaha koonfur galbeed ee Turkiga. Arrintuse waxay isbedeshay oy faraha ka baxday markii madaxweynaha Turkiga Erdogan u soo tuuray diyaaradaha garoonka ee Ataturk ee magaalada Istanbul, halkaas oo uu ku qabtay war-saxaafadeed asagoona dadka kala hadlay kana dhaga adeegay wixii dhacay. Markii uu tagay saldhigga ay ciidamadu leeyihiin, waxaa caddaatay in dowladda ay dib u helayso gacan ku hayntii waddanka oo dhan, waxayna heleen saraakiil badan oo taageertay dowladda iyo madaxweyne Erdogan. Ankara oo u ahayd meeshii dowladda xarunta iyo madaxweynaha ayuusan gacan ku haynteeda haynin. Hase yeeshee Istanbul ayuu fagaareyaasha kala hadlay dadka oo dhammaantood taageersanaa, waxaana ciidamadii ka hortagay shacabkii Turkiga ayagoona ka hor istaagay in ay warbaahinta galaan. Kadibna madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa saxafiyiinta waxa uu sheegay wixii dhacay in ay ahaayeen khiyaano qaran. Shacabka Turkigana waa kuwii dib ugala wareegay ciidamadii eelaboorka iyo weliba warbaahinadii ay gacanta ku hayeen milatariga qabsadayaasha ahaa. Wixii intaas ka dambeeyeyna 18,000 oo qof ka badan ayaa shaqada laga raacdeeyay, ayadoona saraakiil iyo taliyayaal ciidan oo fara badan la casilay. Waddankana isku shaandhayn aad u fara badan lagu subiyey. Turkigana uu madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan Ilaahay u sahlay in uu gacanta u wada geliyo ciidamadii soo duulayaasha ahaa ee afgembiga doonayayna uu xukunkii dib uga cestay, ayadoo shacabka Turkiga ay yihiin kuwa ay ka go'an tahay dowladnimo iyo horumar iyo barwaaqo.
Dowladda Turkiga ayaa hadeertan waxay ku naaloonaysaa horumar aad u weyn oo dhinac walba ah, iyadoo tiknoolajiyadda iyo xagga ciidanka iyo xagga ganacsiga iyo horumarka dhan walba ka adkaysay.